dibitaatina noqda baan doonayaa dawladdu aan ka qayb gala baan doonayaa sidayaa igu diidan dadow ama walay dooran ama dadku qaadiye ama walay dooran waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonna ay u dhacdo sababta aan halkaan soo doortay in doorashadaas ay si xor iyo xalaal ah ugu soo dhacdo gaabisaa jiro shalayna waa jiray gaabiskii welina waa jiraa aan leenahay doorashada gaabiska ha laga saaro ha la dedejiyo horaha loo wadaan leenahay in afartii sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo doorashaa la isku haystaa waxaad maqlayseen Jubbaland oo leeyahay doorashadu ma rabtaa leeyma dhacayso heshiiska doorasho sidoo kale haddii yimaado oo lagu heshiiyo wuxuu ahaa kii doorashada dadbanaa ahaa oo 2016 loo helo doorasho hufan oo cid walba ku kalsoonaan karto iyadana waxaa ku hareer socda oo sharci oo innagoo la dagaalamayna cadowga aan u kala harayn baan insha Allah doorashadana qabsanayna doorasho xur ah oo xalaal ah lagu gaarsiinay haddii ilaahay raalli ka noqdo aadanaha waxa ugu qiimo badan noloshiisa waa marka fursad loo siiyo inuu gacantiisa ku xusho shakhsiga uu ku aamini lahaa masiirka dalkiisa waxaa dalka ka socda doorashooyin uu qof walba u dhagataagayo haddaba haddii aad doonayso inaad si hoose ula socoto xogaha iyo warbixinnada doorashadaasi waa inaad maalin walba la socotaa barnaamijkan aan ugu magacadarnay ama waa lay dooran ama daadku iqaad barnaamijkan ayaan waxaan ku qaadaa dhigi doonnaa si joogto ah habsami u socodka doorashada iyo wararka la xiriira ilaa aan ka gaarno dhammaadka natiijada doorashadaasi ama walay dooran ama dadku qaadiye barnaamijkan oo noqon doona barnaamij maalinle ah waxaad maalin walba kala socon doontaa idaaja media channel haddaba si aanu ku dhaafin barnaamijkan waa inaad barteena YouTube-ka subscribe saartaa gambaleelka furataa asxaabtana ku sheer garaysaa si aad ula socoto warbixinnada joogtada ah ee ka imaanaya doorashooyinka ka socda dalka Soomaaliya ama walay dooran ama dadku qaadiye